waxaan u imi halkaan bal inaan dhacdooyinkii ka dhacay laasacaanood oo xanuunka badnaa bal aragtidayda inaan ka dhiibto iyo waxa ku habboon dadka reer Puntland iyo dadka reer Soolba iyo dadka Soomaaliyeedba awalhu waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhacdada foosha xun oo xasuuqa ah ay ugu geysteen laasacaanood ciidamada Somaliland tacsiduna adoo iska badnayd oo tacsi kaliya wax tarimaysa oo u ducaynayna dadka shuhadada ah xaqdarrada ku dhintay in Ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo taariikhdaana qori doonta meesha ku habboonayd bay ku dhinteen gacanka xaqdaran baa dadka laysay iyagoo wax weeyaan mudaharaad salmiya sameynaya Allah u naxariistaan leenahay buuga taariikhda insha Allah galeysaan iyaga intaasaan leeyahay naxariis janno qabriga Allah u qaboojiyo taa markaan inta uga gudbo waxaan isiri bal waxaan rabaa insha Allah saddex arrimood inaan wax ka taabto ama saddex qolo aan waxyaalaha ku habboon inaan ka dhaho sida ugu habboon oo arrimaha loo wajahi karo awalhu waxaan ku hormarayaa dawladda Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu hogaaminayo dawladda Puntland waxaan leeyahay arinta waxa ku habboon inaad ficil ka muujisaan hadal kaliya waxba tari maayo maanta in ummadda reer Puntland oo ehliyada Puntland oo dhibaatadu soo gaadhay oo dadka awood badan oo dawlad maamul in la siman sheeganaya ma qabo inuu hadal kaliya anfacayo waxaan qabaa in ficil ay ku dado gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo ragga la shaqeynaya wasiiradiisa ah waan ognahay sidaan hadda warku ku hayno awsha Puntland nasiib darro way ku kala qaybsameen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkii ka aragti ahaan anu waxaan qabaa inuu madaxweyne ku xigeenku saxan yahay maadaama uu yiri wax weeyaan war dhibaata jihadi ka jidha arintaas waa ina saameynaysa ficil aynu ka muujino saan xogta ku hayana madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni arinka uu ku khilaafay waxaana sabab u ah inuu ku khilaafo wuxuu ku jira waqti doorashooyin iyo hadde kaambeeyno baa socday kaambeynadaasu dabcan waxay ula muuqatay inaan ciidankiisu kala qaybsami karin ciidamadii Puntland xooggoodii bari bay jiraan sida xaqiiqada ana deesan xogta ku hayno waxay waardiyeynayaan warqadihii doorashooyinka lagu gali lahaa sida darteed madaxweynuhu waxay ula muuqatay maanta inaan ciidankaasu ka kala qaybsami karin sida darteed mid baan kula talinayaa madaxweynuhu waxaad raadinaysaa waa doorasho waliba aad jeceshahay siday ahaan jirtay inaad soo noqotid annaguna waa kula jecelnahay hadaanu shacabka reer Puntland nahay laakiin maanta waxaan ku leeyahay taladu yay ku dhaafin iyadoo xabadi ka socota laasacaanood oo shacabkii Puntland ay xabadi ku socoto oo laamiga lagu jiidayo kuma cuntami karno inoomana cuntami karno inaynu doorashooyin sii wadno aniga ra'yigayga waxa la rabaa aqligu inuu shaqeeyo hawsha awadid waxaan isleeyahay oo hadda doorashooyinkaas way ku habboonayd laakiin caqabad baa timi caqabad culaadeed baa timi shacabkii baa la laynayaa fursadna maanta waxa ku ah adigoo taa inta joojisid dadka ummadda shacabka reer Puntland oo halka lagu gumaadayo u gurmada oo ciidamada Puntland halka ku jiheeya waa fursad qaali ay ku tahay muddada hadda sanadka oo ku hadhay anu waxaan isleeyahay hadaad halka awoodda saadid oo aad ku guuleysatid shakhsiyan adiga fursad bay ku tahay sababtoo waxaad kasbanaysaa xildhibaanadii Sool waad kasbanaysaa maadaama aad gobolkii Sool haday ku suurowdo aad xoreysid kuwii kale oo hartina de anaga barraali kaaga oo insha Allah kula garab taagan anu marka waxaan ku leeyahay
madaxweyne fursadda ka faa'iideyso maanta jaanis baad haysataa hawshan kale oo geedi caana leh anu waxaan qabaa ka ra'yi ahaan in la hakiyo maadaama ay culaada soo siyaadeen geedigu ma hawl yara anu reer miyi baan ahaan jiray oo xoolahan geedigaan aqaanaa geedigu wuxuu yahay reer hadduu guurayo wax dhib yar ma aha furfurid buu leeyahay rarid buu leeyahay jarmaaduu leeyahay maalin gaal buu leeyahay haraad badan buu leeyahay abaardeg buu leeyahay waxa dhici kada laba maalmood iyo in abaar la sii dego in la guuro marka oo geedi caana loo guuro waxa quman maanta duruufaha jira awgood in nagaadi caana lagu joogo nagaadi baynu qabnaa nagaadi caana lagu joogo baan leeyahay hawshaasna waxaan ku leeyahay madaxweyne fursadaas iyay ku seegin madaxweynaha Puntland iyo tiimkiisa sidaasaan leeyahay qodobkayga labaad waxaan kaga hadlayaa reerka la dhaho dhulbahante oo reer Laascaanood ah reer Laascaanood oo haddaad Puntland heshaan iyo madaxweynayaashiyo isku duuban waa ilaahay mahadi iyo shacabkeedu annaguna waa idin raacaynaa haddii alla idmo hadday dhici weydo waxaan ugu baaqayaa reer Laascaanood war ciidan iyo rag baa ilaahay waa idinka buuxshay ciidanka Puntland ku jira iyo kuwa Somaliland ku jira kullu waa isku famil war maanta waxa la rabaa inaad arinta ka dhiididaan inaysan taladu idin dhaafin baa la rabaa waxaan waliba idin kula talin lahaa cid kasta maamul kasta ha ka tirsanaadeen in dhulbahanta meeshu joogo inuu ka soo dhaqaaqo cidna isagu aan amar weydiin in Laascaanood taladeeda isugu timaadaan inaad Laascaanood wada xoreysaan inaad dadnimadiinni iyo magacii daraawiisheedu aad lahayn jideen aad soo celisaan Puntland madaxweyne ku-xigeenka baa ugu sareeya ilaa askariga u hooseeya waxaan leeyahay hawsha u guntada ninna talaha ka suginina isku tashada kuwa Somaliland ka tirsan ama wasiirada ama ciidan ahaadina saasaan ugu baaqayaa walaalayaal midooba gobolkiina xoreeye oo gobolladeena xoreeye oo dumarkan 24 saac meesha lagu jiidayo oo laga qaylisinayo iyo dadka la leenayo dhowr iyo 20 maraya ilaahay baan ku dhaarshay arinta ka dhiidiya mid kalena waa idin kala talinayaa tolow ama ehlow iska daaya ciidan intii meel lagu soo sawiro ceeb iyo sharaf dhac bay idin tahay buu hodlaan ka soo dhaqaaqaya social media ha lagu sawiraya waa duulaya war isma qabato waa dagaalamaya iyo arkoy wax isqabta ma ka waantooba waxa idaacadaha aad askarta iyo qoryaha iyo saraakiisha aad ku soo sawiraysaan Georgia nin dagaalamaya ama duulaan tagaya arrinka laguma yaqaan waxaad samaysaan in dalkiina sidaad u xoreyn lahayd isweydiiya reer Sool ama reerka dhulbahanta la dhaho saasaan leeyahay qodobkayga labaad saddexaad waxaan kaga hadlayaa reer Puntland intiisa kale goboladiisa kale hadday sanaag tahay bari hadday tahay karkaar hadday tahay Highland hadday tahay nugaal hadday tahay iyo mudug iyo waliba degmada Galdogo ehlow halka dadaad wada dhalateen oo eheliyad aad wadaagtiin baa dhibaato ku haysataa dadkaas wuxuu inuu ka baahan yahay gurmad buu inuu ka baahan yahay waa sax afka dadku waa ka hadlaa idaacadaha waa la tagaa waa ka xunnahay baa la dhahaa waxbaan ka qabanaynaa waa la dhahaa laakiin waxa la rabaa inaynu ficil ku darno hawsha waxa la rabaa inaan ficil ku darno dawlad baa reerka la diriraysa laynaysa dabar goynaysa waxba aan ula harin innaguna ummadii ay ka tirsanaayeen ama la dhasheen baynu noo xigto u ah waxa la rabaa arinta inaynu tala ka yeelano inaynu isaga nimaano inaynu ficil ka muujino waxba inoo tarimayso mudaharaad yaroo la soo qalqaaliyay iyo 24 saac inaan social media ka hadalno waxa la rabaa inaan wax ku darno inaan cududeena muujino inaan heli iyo hooba la garab taagnaano
وأرنك أينو كدبينو ورمد رير بوتلان وساسا وقباقيا سيداسا شرفتين كجدا أودين الله هنا تصو dadkaasu badbaaday inuu ka baahan yihiin ilaahay ha badbaadiyo inuu ka baahan yihiin warkayga anigu insha Allah intaasaan ku soo ururinayaa aad iyo aad baa u salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh